daawadayaal barnaamijka waxa aan ku soo qaadan doonaa ama kaga hadli doonaa haddii alla idmo qaybo af Soomaaliga kamida oo haddii aad maqli jirtay dawlad baa la inqilaabay ama dad baa la afduubay waxaa jirta imika oo aad maqli doontaa erey la afduubay ama erey la inqilaabay barnaamijka waxa idinla socodsiin doona ama idin daadihin doona anigoo ah Maxamed Kayse waxa marti sharaf iigu ah caawa barnaamijka Axmed Cali Kamiin oo ah aqoon-yahan isla markaana ah dadka sida fiican ama aqoonta dheeraadka u leh afka Soomaaliga iyo suugaanyahan Cabdilaahi Colaad ereyga ugu horeeya ee aynu ku soo qaadan doono aynu la faguri doonaa waxa weeyaan ereyga la yiraahdo beel oo u inqilaaban ama uu inqilaabay ereyga la yiraahdo qabiil haddaba marka ugu horeysa waa maxay macnaha asalka ah ee beel waxa aan ku wareejinayaa jawaabta marti sharafta barnaamijka midkood inuu inoo faahfaahiyo bal hadda ama inoo sheego asalka micnaha beel waxa uu yahay iyo sababta keentay inuu ereygaasi maanta u afduubnaado ereyga qabiil bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamayaa dhammaan daawadayaasha barnaamijka TV-ga Soomaalisaad su-aasha ah beel macnaheedu beel waxay tahay waqtigii hore Soomaalidu markay reer guraaga ahayd ama ay degi jirtay dhulka baadiyaha intii meel wada degta oo tiro ka kooban aan xadid lahayn 50 reer bay noqon kartaa 50 qoys bay noqon kartaa 60 bay noqon kartaa 10 bay noqon kartaa baa waxa la yiraahdaa beel baa meesha degan beeshaasi khasab maaha inay isku qabiil tahay oo qabiil ka soo wada jeedo khasab maaha inay isku deegaan tahay oo waxa dhacda in ayna isku deegaan ahayn beel qayba dhinac ka soo hayaantay oo roob meesha helay oo roob isugu timid ay tahay ama biyo isugu timid ama baad kale isugu timid duruuftaasina meesha ay wada keentay baa beel la yiraahdaa kuwa wada socdo oo isku qabiil ah oo meel wada degana beel waa la yiraahdaa marka ereygan beel macnihiisu ma ahayn qabiil inuu sheegayo tilmaamayo qabiil wuxuu tilmaamayay bulsho meel wada degta oo isku deegaan ah oo aan deegaankeedu kala goonayn ay meesha ay deegaanka ay haysto baa la yiraahdaa beel baa degan halkaa marka ereyga beel isaas ku yimid ereygan qabiilku waa ka macna duwan yahay oo qabiilku waxa weeye waa ummad inkastoo Soomaalidu ay hal qoys tahay oo isku sinji tahay oo isku meel ka timid haddana waxay u sii kala baxdaa jilibada ay Soomaalidu u kala jajabto baa qabiilka la yiraahdo qabiil loo xisaabaa marka qabiilku isagoo meel wada degan beel uu noqon karaa oo beel meel wada degta uu noqon karaa isagoo kala qabiil la duwan oo qabiil qayb ka soo jabtay iyo qabiil kale meel ka soo hayaamay oo meel isugu yimidna beel waa la yiraahdaa qaabkan uu afduubay hadda ereygan u dhomaad gareeyay ama u qariyay ma garan kara say ku timid waxaan se kulay anigu u nisbaynayaa burburka Soomaaliga ku dhacay oo isagoo afka Soomaaligu uu af yahay waqtigii la qoray uu kooban yahay baa waxa ku timid burbur isagana horumar badan samayn saldhig adag samaysan akademiye iyo qoraal iyo xeerar loo samayn oo xeerashiisii iyo la wada kaabayaashiisii oo dhan la adkay ayaa waxaa yimid burburkii dawladdii waddanka ku dhacday waddanku burburay kadib burburkaasi wuxuu kolley afka u keenay dhibaato badan oo aad u fara badan oo ayna hadda soo koobi karin marka dhibaatada uu keenay bay ka mid tahay oo de waxaad arkaysaa beel iyadoo lagu leeyahay beel heble waxay kala sooridii kala noqotay waana dhow qof oo meel isugu yimid xitaa beeshii oo dhan ma aha waa sida loo isticmaalayo hadda kooxda al-shabaab baad maqlaysaa waana ummadan oo dee intaasoo ciidan ah leh oo haddana koox loo marka waxbayaan hadda sii gelin ayna iisii dhiibin qayb kale iisii dhiibin ereyga waxaan kusoo koobayaa beesha iyo qabiilku saasi u kala duwan yihiin Cabdilaahi Colaad maxaad
adiguna sidee bay kula muuqataa ereyga beel ama maxaad ku kordhin lahayd sidaa uu sheegay axmed? bismillah, waxaan u maleynayaa axmed wuu dhameeyey oo sidii ay beeshu hadalku ahaa wax lagu darayo kale oo u harsani ma jiro. inkastoo waxaan qabaa sidaa u sheegteen dee ereyo badan baa ka tegay meeshii sidii loo yaqaanay si aan hayn loo isticmaalaa. horta axmed waan ku raacsanay midkaas sidaa u sheegay, waayo waxaan aynu garanaynaa beel waxay ahayd war halkaa ayaa yaala intaa beesha halkaa taallaa ugu sokaysa ayaa la odhan jiray. markaad qofku safarka yahay dadka safarka oo kale qofku wuxuu doonaya inuu safro inuu meel fog dhulku waa kala go-an, dadku waa kala ool waa kala go-an yahay. marka wuxuu tilmaansan jiray qofkaasi beesha ugu sokaysaa halkaasuu beesha lagu gaadhaya, meel hebla ayaa beesha ugu sokaysa aad ku gelaysaa. beeshaasi reer ma ahayn, qolo ma ahayn, waxay ahayd dad ku kulmay markaa meesha sidaa u sheegay axmed. ama ha isugu yimaadeen baad iyo maxay ahayday raxmaad meesha ka da-ay, ama ha isugu yimaadeen biyo qabatiriyo iyo ceeldeg meel biyo loo fadhiistay. horta beeshu sidaasay ahayd, dad isugu yimi meel oo dhinaca kasta isaga yimi oo markaa isku deegaana oo meel wada degan oo markaa maxay ahayday meel ku wada nool ayay beeshu ahayd. markaa horta kelmadda waa caynkaa, kelmaddan beesha reer hebel baa caynkan tidhi waa wax inagu cusub. waxaanse hubaa inay jiraan waxyaaba fara badan oo meeshoodii ka baxay. maalin waxaan dhegeysanayay idaacad baan dhegeysanayay idaacadaha af Soomaaliya ku hadla mid ka mid ah. si aan u dhegeysanayay wariyihii ka warramayay ayaa wuxuu isticmaalay erer cajiib oo maskaxdaydii ay qaadan weyday. waayo dee qolyihiinan tiifiyada iyo idaacadaha iyo waa meelaha loo baahan yahay inay ilaaliyaan inuu ereygu meeshiisii meelaan ahayn la qabadsiiyo, in laga ilaaliyo oo loo ileen ummad yaryar oo af Soomaaliga hore oo aqoon oo maxay ahayday ama ayaa waxaan qabsanaysa. markaa si qaldan haddii loogu dhiibo oo qofkii si qaldan wixii u qaato waa khatarteeda leedahay. wuxuu isticmaalay wariyihii idaacadda, wuxuu soo qaatay waddan ka mid a waddamada carabta oo mushkilada ka dhacday. markaa wuxuu yihi hebel iyo hebel oo isu dumaashiya ayaa halkaa lagu dilay buuri. isu dumaashi maynu arag laba nin oo isu dumaashiya adduun af Soomaaliya kuma jirto. nin iyo gabadh dumaashi way isu noqon karaan, laakiin dee laba nin seedi way isu yihiin, sodog bay isu yihiin, ilma abti bay isu yihiin, abti bay isu yihiin. markaa almuhim waxaan leeyahay ereygaasi kelmadda ah beel waxa weeye micnaheedu sidaynu u naqaano ay af Soomaaliga ku tahay dad meel wada degan oo maxay ahayday meesha ay wada degan yihiin aanay ku wada deganayn qolo. hadday doonaan qolo hadday wada yihiin oo ayagu reer lama odhan karo reer helma wada, laakiin beel waxa loo yaqaano bulsho meel ku wada nool. wasalaamu calaykum. waa hagaag. sida aynu la wada soconno waxaan u malaynayaa ereygaas 1991 wixii ka dambeeyey ayaa loo badan yahay ama ay u muuqataaba in inqilaabku ku dhacay oo ereyga qabiil uu inqilaabay. sababta reer miyigu ma lahayn, Soomaalidu uma qaybsana macnaha reer miyigu ma lahayn, reer magaalka ayaa lahaa. reer magaalkuna eedda ma sii wada lahayn, laakiin inta aan ka warhayo warbaahinta ayaa khaladka ugu weyn gashay oo ereygan majara habaabisay oo labada erey isku inqilaabtay. sababtuna waxay ahayd cuqdad ay ka qabaan ama waayo aragnimo aanay u lahayn iyagoo diidaya ereyga qabiil inay isticmaalaan. macnaha qabiilkii bay cuqdad ka qaadeen, dabeetana waxay doonayeen ereyga beel inay ku bedelaan iyagoo isle wax astura ama qabiilka yara ma garanaysaa qariya ayuu. waayo waxaan xusuustaa xilligaa markii warbaahintu wargeysadii ugu horreeyey ay soo baxeen, gaar ahaan magaalada Hargeysa anigu joogayo markaas wargeysadii ka soo baxaybaa waa kuwii ugu horreeyey anigu waan ku arkay ereyga beel inay u isticmaalaan qabiil. marka waxaa la odhan karaa xilliyadaasuu ereygani kolley aniga markii ugu horreysay aan arko ereygan oo la majara habaabinaya xilligaasay ahayd.
wixii ka dambeeyeyna dee waa xabad moodaa inuu hirgalay oo uu fadhiistay meeshii uu ereyga qabiil fadhiyey. waan ka gudbaynaa, waxa aan u gudbaynaa erey kale oo aad u xiiso badan runtii, la yaab weynna leh. ereygaasi micnaha uu leeyahay, sharafta uu leeyahay, qiimaha uu leeyahay, iyo maanta halka uu fadhiyo ee la fadhiisiiyey. waa ereyga guulwade. ereyga guulwade ma afduubna, laakiin waa inqilaaban yahay, sida ereyga beel oo kale ayaa la inqilaabay. guulwade waxaa loo isticmaalaa imika, inta aynan asalka micnihiisa aynu inagoo isweydiin doono oo ku noqon doona, ereyga dabadhilif ayaa inqilaabay. macnaha micnihiisii, ereyga dabadhilif micnihiisii baa wuxuu dusha ka fuulay oo saaran yahay ereyga guulwade. marka la doonayo qof in lagu yidhaahdo dabadhilif, dabadhilif lagu odhan maayo, waxaa lagu odhanayaa guulwade. haddaba ereyga guulwade haddii aad qiimayso, mararka qaarkood waxaad is odhanaysaa xataa qof bila aadana looguma yeedhi karo. waayo labada erey markaad isku darto, guul iyo wade, waa cid aan lagaba guulaysan. cid aan lagaba guulaysana alla mooye wax kaloo lagu sifayn karaaba markaa ma jirto. marka aniga oo idinku soo wareejinaya ereyga guulwade, marka hore ma u qalmaa waxa hadda lagu sifeeyo ama loogu yeedho? bismillaah raxmaan raxiim. aan bal anigu kaga hormaro walaalkay. waxaan u malaynayaa ereyga guulwade asalkiisu de waa sa aad u sheegtay, oo waa laba erey oo laisu keenay oo ah guul wade iyo guushii iyo wadihii. waxaynu odhan karaa xilli qofku kasta oo wax ku guulaysto ama hawl ku guulaysto ama hawl uu wado wanaagsan oo ku guulaystay, guulwadaa la odhan karaa. laakiin heerka maanta la gaadhsiiyey oo loo isticmaalay ama dabadhilif aynu nidhaahno ama basaas aynu nidhaahno, kulley waa uun ereyadan loo isticmaalo dhinaca magaalada loo isticmaalo qof hawl gaara haya oo si shaksiya ama dad shaksiya u haya ama dawlad u haya oo u shaqaynaya baa booskeedii la geeyey. laakiin booskan muu lahayn, shuqulla kuma lahayn. waxaadna moodaa ereyo badan oo ay isticmaali jirtay dawladdii hore ku shaqayn jirtay ama isticmaali jirtay in laga qaaday booskoodii, qaarna laga dhigay inay dawladdu samaysay oo leedahay. hadda ereyga jaal oo kale haddaynu soo qaadano, qof kasta oo maqlay wuxuu aaminsan yahay in dawladdii siyaad barre ay iyadu keentay ereyga, mana keenin. oo innaga meesha loo noqdo ee af soomaaligeenna dib loogu noqday marjaca u ahay, maadaama unan qoraal lahayn, waa sugaanta. markuu lahaa nafjeclaysii baan kuuli jaalle uga daayay, dheexaan jalaadee dheg baan jalaqla ii siinay, sayid maxamed cabdilla xasan, ee uu jaalle u isticmaalayay koofil gabayga ku jiray. dee dawladda siyaad barre may jirin, dawladda soomaaliyeedna may jirin. dadkii baadiyaha kusoo koray ee baadiyaha ku dhashayna marka ciyaaraha la ciyaaraya jaalla aynu isticmaali jiray, oo labada gruuba iska soo horjeeda. hadda kooxda loo isticmaalo, annagaa isku jaala la odhan jiray, qofkan annagaa isku jaala marka la ciyaarayo. haddana meesha waynu ka kaxayno, waxaynu ka dhignay hadda qofka hadda jaala war jaallahay aad ku tahdo wuxuu u qaadanayaa si kale, oo ereygi waa la siyaasadeeyey, meeshiisiina waa laga kaxeeyey. kan guulwadana waa la mid. run ahaantiina waa ereyada aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad u dhibsanayso markaad maqasho meesha la geeyey, maqaamka ay joogeen iyo maqaamka hadda la geeyey. marka kolley inuu shaksiyan ma qabo inuu ereygaasi booskiisii ama meeshuu dee istaahilay uu joogo, ma qabo. waayahay, waxaan gurajinayaa cabdillaahi colaad. bismillaah. waxaan u malaynayaa dee wuu iska dhan yahay hadalku, dee saa aynu u wada aragno guul. dee marka guul la yidhahdo, guul waa wax wanaagsan, hebel waa guulaystay, guulwade qof wax guulwada. laakiin sidaa u sheegteen ama uu saaxiibkayga horreeyey uu sheegay, ereygan guulwade waxaan u malaynayaa xilligii
dowladdii soomaaliya ee uu garwadeenka ka ahaan jiray maxamed siyaad barre xilligii ciidan la sameeyey baa jiray oo magacaa lagu magacaabay halkaas horta laga raacay saan ugu rumaysnahay intii ka horreysay dee guul waxa horta kelmaddan guulwado oo wada socda guul iyo dee way jiri jirtay kelmadda waa lagu guulaystay waana kelmad af soomaaliya marka waxaan rumaysnahay sida dareenka dadku ka qabo imanka ama isticmaalkeeda ama iyo sida ay kelmaddu tahay inaan islahayn saas aan u rumaysnahay dee waxaad arkaysaa maxay ahayday kelmaddii wanaaggeedii markaad aada miisaanto iyo dareenku dadku ka qabo marka waxaan rumaysnahay waa ereyadan uun maaragtay ay ka luntay noxorkii laga lumiyey ayay u eg tahay markaa saasaan u arkaa inay tahay waa hagaag waxa aynu haddana u gudbaynaa erey kale oo aynu intaynu barnaamijka ku jirnaynaa sooba qaadno meelaha qaar ay sheekadu inala gashay waa ereyga qabiil laftiisa ereygaasi waxa uu afduuban yahay ereyga la yidhaahdo qabyaalad soomaaliduna iskuma jirto eedda badankeedu ama dhibaatada afka soomaaliga haysata dadka ku haya waxa weeyaan waa dadka reer magaalka ee magaalooyinka degan ee sababta leh haddaba ereyga qabiil goormaa ereygan qabyaaladu afduubay ilayn qabiil waynu naqaanaayo waa abtirsiimo waa magac lagu abtirsado ama laysku garto oo maxaan idhahdaaye dee sida diinteenu noo sheegtayna aan ahayn wax ceeba qabyaaladana waynu fahmi karaa waxa ay tahay oo iyaduna dee waa wax ka duwan qabiilka oo waxa weeyaan iyo wixii la halmaala waa xumaana waa wax aan qofka bini aadanka macnaha weliba muslimka ah inuu sameeyo aanu ahayn xalaal ama u bannaanayn haddaba dhibaatadani goormay dhalatay ama sideebaa maanta dadkii labadii erey way iskaga khaldan yihiin oo way iskaga milan yihiinoo ereygii qabyaaladba halkii qabiil fadhiye waa maxay sababtu mushkiladdu waa maxay ama se labadan erey goorma ugu horreysay goor aysan isu dhex galaan oo ma garanaysaa labadan erey ay isku milmeen oo ereygani ereyga kale qabsaday waxaan ku horreysiinayaa axmed cali kabiir bismi illahi raxmaan raxiim labadan erey horta waa si aad u sharaxday kaysi aad u sheegtay waa laba erey oo runtii dee aan isku shuqul ahayn oo isku qaabka loo isticmaalo hadda ee dadku isugu khalday aan ahayn oo dee qabiilkana waynu naqaanaa oo waa ummad uun si isu raacday qabyaaladuna waa ficil lagu kacay oo aan wanaagsanayn wanaag meel laba ka soo gelin dhinaca diiniya iyo dhinaca bili-aadnimo iyo dhinaca sinaba aan ku wacnayn oo wanaag meel laba ka soo gelay qaabkan ay isu dhex galeen kulley anigu waxaanu iska taagnahay dee waa uun xilligii uun burburku dhacay oo wax badan inaga burbureen oo nidaamkii burburay oo dhaqankii aan odhan karo wuu burburay baa kolley uun sababta ugu weyn ah saldhig isaga u noqonaya way jiraysaa oo dhibaato badan waxaa ku haya sidaad soomaaliga aada u sheegtay afka magaalada ama dadka magaalada dhibta ay ku hayaanna aan kuba sii tiigaalo meel yar ka taabtee hadda guri haddaad soo dhex taagto guri ah magaalo wax allaale wax yaalla shay af soomaaliya kuma jiro sariir kursi miis fadhi go wax soomaaliya kuma jiraan go baa laga yaabaa in ay gu soo dhawaato haddaad aqal baadiye isdhex taagtana shay iminka shay kusoo darsamo sida caag iyo kili iyo shay kusoo darsamay maahaane waxa yaallay waqtigii hore ooli jiray waa wax wada af soomaaliya waa xadhig waa hoggaan waa harar waa hadhuub waa dhiil waa haan
waxoo dhan waa yacay waxoo dhan waa af soomaali sababtuna waxay tahay iyagaa samaystay kan magacana iyagaa loo baxay kanna isagoo magaca leh binoo yimi record isagoo record ah binoo yimi telefishin isagoo telefishin ah binoo yimi warshada sameeyana manihi erey bixin kalena ulamaynaan bixin marka horta dhibtan dadka magaalada lafteeda aynu leenahay iyagaa soomaaliga dhibta keenay iyaga laftooda dhibaato kala haysato wadankii ma laha wax soo saarna ma laha uu warshado iyo magac bixin ma laha magacanna isagoo shaygani wato oo dibadda lagu soo sameeyo magac ilahi baa inoo yimaadaa sidii baa inoo isticmaalaa u soomaaliyeyna marka kolley taas qayb weyn bay ka qaadanaysaa oo waxaad moodaa qoladan magaalada bal inaan yara difaaco aan iyaga laftooda u bixiyo siduu bixiyo ay ka baxaan ergan laakiin qabiilka waxaan anigu odhan karaa waa dhibaatadan waddanka ka jirta oo aynu odhan karno de waxaa laga tegay waxyaabo badan damiirkii qofkaad moodaa inuu runtii uu qofka soomaaliga lahaa ama damiirkuu lahaa baad moodaa inuu aada u bedelmay oo uu liinbax ku dhacay marka kaas unbuu qeyb ka yahay in ereygii wixii xumaantii loo isticmaalo meeshii ereygii qabiilkii xumaan loo isticmaalo anuu saasaan odhan karaa ma la odhan karaa qabiilku marka uu miyi joogo waa qabiilkiisii waa sidii loo yaqaanay sidii uu ahaabaana loogu dhaqmaa oo dadku markay iska hor yimaadaan way iswaraystaan qolomaa tahay bay is yidhaahdaan way isu sheegaan oo wax ceeba kama laha sidii uu hore u ahaan jiray weli miyigii wuu ka yahay laakiin meesha mushkuladdu ka jirtaa ma la odhan karaa waa magaalada iyo dadka reer magaalka oo weliba eedda ma sii saari karaa dadka siyaasiyiinta ahoo ma odhan karaa iyagaa mushkuladan keenay ilaa ninka maanta magaalo joogaa inuu yidhaha reer hebel baan ahay waxay u tahay wax aada u xun ama ceeb buu arkaa isaga oo ma garanaysa hadda weliba ku dhaqmaya siyaasiga oo inta badan aanu leenahay eedda ma saara isaga laftigiisana waxaad moodaaba inay u janjeedho dhinaciisa inay tahay halka ereygani iyo mushkuladdu ninka macnaha sababta u ah markaa ma odhan kartaa oo ma odhan karnaa ereygu weli miyigii waa ka nool yahay oo sharaftii iyo sidii uu ahaabaa looga dhaqmaa laakiin meesha mushkuladdu ka jirtaa waa magaaladana siyaasiga ma sii saari karaa eedda kaysi arrintaa waa kugu waafaqsanahay aad iyo aad baan kugu waafaqsanahay waayo waxaan odhan karaa ereygan markuu baadiyaha joogo ama dadka ku dhaqmi jire lahaa uu dhex joogo ma fasaqmin jirana kuma dhicin mana fasaqmin sidii ay u isticmaali jireen bay u isticmaalaan sidii buuna iyaga u yahay waxaan odhan karaaba haddaad weydiiso hadda qabyaaladda iyaga oo aad tahda ereyga qabyaalad ma sharixi karaan ma sheegi karaan waayo waa ereygii oo la bedelay macdihiisii inta wax laga bedelay la siyaasadeeyey waxaan u malaynayaa marka ereygani ma fasaqmin markuu meeshiisii joogo ma fasaqmin waa sidiisii uu yahay jirana kuma dhicin laakiin markuu tegey magaalada oo uu siyaasad galay oo la siyaasadeeyey ayuu ereygii isbedelay waana kugu waafaqsanahoo nimankan dee siyaasiyiintii waa ku shaqaystaan qaab ay ku shaqaystaan bay noqotay khaasiyan dagaaladii sokeeyey iyo burburkii iyo dhibtii markay dhacday siyaabo badan baa dadkii loo kiciyo looga faa'idaystay oo af soomaaligii loo majar habaabiyey oo waxyaaba aadan yeesheen qofku caadigii uusan yeeleen baa si kale loogu dhigay oo uu u yeeli karo u fahmi karo marka aad baan kugu waafaqsanay siyaasigu inuu dadka aada ugu tuntay ee dhibta keenay ee ereygan xumeeyey ay ka mid yihiin mas-uulka yihiin hormuudna u yihiin aad baan kugu waafaqsanay arrintaa cabdulaahi colaad markii miyiga la joogay iyo ereygani iyo xataa iminkadan la joogaba bal ereyga qabiil miyuu sawirka uu iminka leeyahay ka lahaa ama in yarnaba la odhan karaa macnaha dadku way ka maagi jireen ama foolxumay u arki jireen ereyga qabiil inay afkooda soo mariyaan ama ay isticmaalaan bismillah horta dee qabiil waa jiray weligiiba oo dee qabiil wuu jirayo waxay ahayday dadku qabaa'il bay ahaayeen laakiin waxaad moodaa iminka inay isku yar daateen qabiilkii
oo aniga oo iyo qabyaaladii wixii la isku milmeeda moodaa oo ay isku dhex walaaqmeen oo markaad eegto arrintii marka ay noqoto maxay ahayday markay noqoto بالحقيقة markaad eegto iminka xakaad siyaasiyiinta oo markaad sheekada siyaasadda oo kale marka la eego markuu ay la doonayo in wax la yar kiciyo ayaa sida badan eryadan ay isku dhex milmaan oo dadka qabiil iyo siyaasad qabiil iyo qabyaalad markaasaa la isu dhex geliyaa ayaad moodaa oo ay waxaan isqaataan inkastoo aan rumaysnahay waxyaaba badan oo dee iminka iska qasan inay jiraan haddana kolley ereygani siduu markii hore ahaa iyo imanka wax weyn baa u dhexeeya oo maxay ahayday qabiilku waa dad waa reer la yaqaano oo magaca oo iyuu ahaa laakiin isticmaalka imanka habka loo isticmaalo ama loogu dhaqmo waxaad moodaa inuu yahay wax yacniga aan habkii uu ahaan jiray ama uu ku habboona aan ahayn wuxuun baana u sababa sidaynu aynu isla wada qirsannahay dano dad uun danale uunbaa waxaan isdhexgeliyey maxay ahayday dabeetana waxay noqotay waddo uun markaa soo oodmi weyday oo maxay ahayday sii shaqaysay waxaanay ku qurux badan tahay in aada iyo aad waxyaabaha caynkaasa in aada looga digtoonaado oo dadku uu yeesho maxay ahayday wax waliba halka ay fadhiyeen inaan laga rarin ee loo daayo ayay ku qurux badan tahay in badan waxaynu maqalnaa dadku iyagoo cabanaya oo aada garanayso ujeeddada iyo waxay ka cabanayaan inay tahay qabyaalad laakiin ay leeyihiin qabiil baa ina dilaya qabiil baa ina baabiinaya qabiil baa sidan inoo galay qabiil baa ina rogay markaa ma qabiilkaa ina dilaya oo maanta bulshada waxaynuu sheegnaa in qabiilku yahay ka dilaya mise dadku waxay tahay inay gartaan waxa dilaya inay tahay qabyaaladda mar labaad baan jeclahay hadda arrintaa inaad u faahfaahsan cabdillaahi bismillah de horta waxay u baahan tahay waxaan umalaya daraasad badan in la sameeyo oo waa arrin weyn arrintan imka su-aasha aadna weydiisay waa su-aal aada u weyn daraasad badanna way u baahan tahay laakiin de waa wax markaad eegto yacniga marka kule daraasad si laysu qanciyo oo qof walba uu qancayo bay micnaha noqonaysaa laakiin jawaabteedu soona koob ha jawaabteedu waxay noqonaysaa qabiil ku dili maayo waxaa ku dilaysa waxaad ku dilaya ama wax xumeynaya waa qabyaalad yacniga aan yaan rumaystay anugu waayahay maxamed cali waa hal minid baad haysataa bismillah waxaan ku raacsanahay saa walaalka yidhi baan ku raacsanahay qabaa'ilku dee soomaalidu waagii horeba waa wada degi jireen waa jireen wax hadda uu iskumayna ma aha qaabkan uu hadda yahay iyo sidan la isugu dilay iyo sidan uu yahayna muu ahaan jirin waxaana tusaale keliya inoogu filan waan tusaale soo qaadan karaa dagaaladii sokeeye soomaaliya ka dhacay dee waxay socdeen ilaa jifida u hooseysa socdeen ilaa jifida u hooseysa sidii basashi u dhilantay u dhilmeen marka intaa keliya tusaale inoogu filan inaan wax dilayaa qabiil ahayn oo qabyaalad iyo ninkii adeegsanaya yahay ee siyaasiga ahaa ay ku shaqaysanayay saasaan ugu arkaa aada iyo aad baa u mahadsan tihiin axmed cali kamiin iyo cabdilaahi colaad iyo dhammaan dadweynaha nagala socda daafaha dunidaba sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu